wararka ka imaanaya dalka boqortooyada Sacuudi Arabia ayaa sheegaya in ay dhinteen qaar kalena ay dhaawacmeen xujayda sanadkan gudanaysa waajibaadka xajka kadib markii ay isku buurteen goobta dhagax tuurka shaydaanka. wariyahayaga Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus ayaa warkan noo soo diray. iyadoo maanta ay ahayd maalintii saddexaad ee dhagaxan tuurka shaydaanka ayaa waxaa muuqatay inuu jiray xiriiri ballaaran oo ka dhashay xujay sida mawjadaha oo kale ay ku soo fataheen goobaha dhagax tuurka shaydaanka oo sida la sheegay inay keentay dhimasho iyo dhaawac, balse aan warbixinta rasmiga ka sugayno wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda xajka ee dalka Sacuudi Arabia. guud ahaan wixii dhibaatooyin ah ee ka dhacay goobaha barakeysan ee xajka inta lagu guda jiray gudashada rukunta xajka. haddaba intaasi waxaa dheer, iyadoo warbaahinta qaranka ee Soomaaliya SNTV oo ku sugan goobaha barakeysan ee xajka ay la kulmeen xujay Soomaaliyeed oo ay uga warameen in ay maqleen in xujay Soomaaliyeed ay ku geeriyootay goobaha barakeysan oo ay ka mid yihiin xujay Soomaaliyeed, inkasta oo aan ilaa hadda aan la haynin tirada rasmiga ah ee xujaydii geeriyootay. haddaba xujaydii maanta samaysay dhagaxan tuurka shaydaanka waxay toos ugu gudbi doonaan xaramka barakeysan ee Maka al-Mukarrama si ay u sameeyaan tawaaful wadaac oo ay ku macsalaameyn doonaan Baytullaahi al-Xaraam, iyadoo xujayda ugu dambeysa ee maalinta berrito sameyn doonaan dhagaxan tuurka shaydaanka kadibna ay u sharaxan doonaan ama ay u bixin doonaan dalka Soomaaliya. Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus, warbaahinta qaranka Soomaaliya SNTV, goobaha barakeysan xajka dalka Sacuudi Arabia.